Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan, kusoo dhawaada mar kale Yasmin Yaasiin. Haddii aad horey noola joogteen muuqaalka like-ta naga ilaaway si dad badan u gaaro. Haddii aad nagu cusubtaan subscribe-ka nagu caawisa ay kusoo gaaraan muuqaalada ugana sii faa'iidaystaan. Maanta waxaan halkan uga hadli doonaa waxa loo yaqaano gastriga ama gaaska ama gaas calooleedka. Afka qalaadna lagu dhaho gastric ama gastritis, peptic ulcer. Gastriga waa xanuun dadka badanaa ay ka cawdaan, gaar ahaan Soomaalida. Markiisa horena wuxuu ka bilowdaa cuncun ama barar ku dhaca dahaarka caloosha, waxaana soo saara aashito marka ay jirto daciifnimo ama dhaawac soo gaara lakabka difaaca darbiga gudaha ee caloosha oo sababa barar ka imaanaya dhanka gudaha caloosha. Caabuqaasina waxay keentaa astaamo ay ka mid yihiin calool xanuun daran iyo dhibaatooyin dheefshiidka ah. Xaaladaha badankood waxaa sababa infekshanka bakteeriyada nooca loo yaqaano H. pylori. Waxaa loo qaybiyaa laba nooc, gaaska ama gastriga. Tan koowaad waa mid daba dheer oo waqtigeedu aad ugu dheer yahay oo qofka in badan oo xanuunka la tacaalayo ama uu la dala dhacayo. Astaamuhuna waxay socdaan muddo dheer, sanado bay socdaan. Tan labaadna waa mid tan kasii daran. Astaamaha waxaa loo diiwaangeliyaa muddo kooban oo u dhaxaysa dhowr maalmood ilaa dhowr bilood. Mar walbana waxaa keena ama sababa in caabuqan uu ku dhaco dahaarka ama lakabka difaaca darbiyada gudaha ee caloosha sababo kala duwan. Sababaha waxaa ka mid ah infekshan ka dhasha jeermiska bakteeriyada caloosha gasha nooca loo yaqaano H. pylori, adeegsiga qaar ka mid ah daawooyinka sababa waxyeelada dhinaca caloosha ah sida aspirin ama ibuprofen oo la qaato muddo dheer. Sidoo kale waxaa sababi kara xaaladaha qaarkood ee la xiriira walaaca daran, infekshanka fayraska nooca loo yaqaano CMV ama herpes viruses, isticmaalka xad-dhaafka ah ee cabitaanada ka samaysan khamriga, infekshanka ku dhaca cudurada ka imaada cudurada laysku dhaho autoimmune diseases ama iswadka. Mararka qaarkoodna waxaa keeni kara aan u malaynayo sababta ugu badan ay tahay oo Soomaalidana ku badiya waa xaggaas iyo qurac la'aanta aroortii ama subaxii. Astaamaha gaaska waxaa ka mid ah rabitaanka cuntada oo yaraata, qofka inuu cuntadii uu ka go'o, miisaanka oo yaraada, labolabo iyo matag badan uu isku arko markuu cuntada cuno, xanuun dhanka caloosha ah oo ka dareemo, midabka saxarada oo isbedela, mararka qaarkoodna dhiig uu soo raacdo, matag joogto ah oo mararka qaarkood dhiig la socdo. Baaritaanka xanuunkan gastriga kadib marka la ogaado astaamaha, baaritaanka wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood. Qaybta koowaad waxaa la baarayaa saxarada iyo dhiigga, waxaana la sameeyaa si loo ogaado bakteeriyada keenta xanuunkan gaaska ah. Baaritaanka shaybaarka oo sambal laga soo qaado bakteeriyada si loo ogaado nooca ay tahay. Sidoo kale waxaa jira baaritaan dhanka endoscopiga ah oo lagu fiiriyo qaybta sare ee mandhicirada. Sidoo kale baaritaanka shucaaca ee sawirka raajada ee laga qaado qaybta hoose ee dheefshiidka, iyo weliba kaamirada afka la geliyo oo lagu ogaado dhiigga nooc caloosha dhaawaca gaarsiisan intuu la egyahay ama caabuqa intuu gaaray. Sidoo kale qaadista dhiigga iyo weliba baaritaanka saxarada. Daaweynta gaaska, daawooyinka yareyn kara aashitada caloosha waxaa ka mid ah familiga loo yaqaano Zol oo ka kooban omeprazole, pantoprazole, esomeprazole iyo weliba famotidine. Waxay yareeyaan gaar ahaan aashitada ka dhalan karta caloosha ama qofka inuu dareemo laabjeex zaid ah. Gaar ahaan wax aad loo isticmaalaa omeprazole 40 mg ama 20 mg hadba midkii aa heli kartid. Waa muhiim inaad dhakhtar la xiriirtid haddii ay isku aragtid calaamadaha gaaska ama ay kugu soo noqnoqdaan mar walba.